ku soo dhawow qaybtii shanaad ee qisadii jacayl iska kaylow. Qaybta afraad waxay ku dhammaatay anigoo warqadii u geeyay hani aan muddada qorayay. Qaybtanna halka ayay kasii bilaaban doontaaye daawasho wanaagsan. Aan ku xasuusiyo tabiyaha qisadu waa anigoo ah Nimcaan Ilkacase. Fadlan haddaad ku cusubtahay YouTube channel-keena subscribe noo saar, gambaleelkana furo si aad ula socoto qaybaha kala gedisanaya qisadan iyo barnaamijyadan halkan ka soo dayno. Waad mahadsan tahay. intaa kadib xafiiska ayaan isaga soo baxay wixii waqtigaasi ka dambeeyey maalinkaasi oo dhan hani shaqada kuma aanan arag waxaan u qaatay inaysan xafiiska kaba soo bixin oo ciil iyo walaahow halkaa isugu keli yeeshay anna waqti isagama aanan lumin raadinteeda markii aan shaqada dhammaystay ayaan isaga soo baxay waxaan aaday hoygeenii hooyo iyo aabba iyo xubnaha kale ee qoyska oo fadhiyey deerka ayaan salaamay kadibna qolkayga ayaan iska galay qada cunis kadib waan iska seexday galabkii markii aan kacayna waxaan aaday baashaal iyo inaan asxaabteeda u sheeka tago maalinkaas waqtigasaas baan ku lumiyey waxaan odhan karaa maalinkaasi waxay ahayd maalinkii ugu dambeeyey ee kaftan iyo sheeko caynkaasi oo kale aan la wadaago saaxiibaday habeenkii markii aan guriga ku soo laabtay oo aan casho iyo qoysla sheekaysi aan dhammaystay kadib waxaa ii bilowmay xaalad nololeeda cusub waxaan gudagalay fakar baasi oo qalbigayga ka dhigay mid aan fadhinin waxaa igu soo laalaabanayay muuqaalka gabadha Istar ah waxaan istusinayay wanaaggeeda marna wax xumaan oo ay leedahay ima muuqan aba aysan lahayne waxaanse qalbigayga ugu sawirnaa meelo badan oo jirkeeda ka mid ah oo aan aad ula dhacay sida bishimaha suniyaasha iyo qaabku isugu jaango'an yahay jirkeedu in badan ayaan isku dayay inaan isilowsiiyo balse way noqon weyday waxaad moodaaba inay awood qalbigayga ku qabsatay oo ay u diiday ka fikirka arrimo kale waxaan isweydiiyey wax ay sida nolosheeda ugu milantay mar baan is idhi talomakii baasaaye jacaylka ahaabaa ku helay haddana aniga unbaa isu jawaabay oo waxaan is idhi maya ma ahan jacayl ee waxaa badan wanaagga aad u hayso haddana waxaan istusay in qof kastaa uu wanaag intaa la eg loo hayo nolosha sidaa saamayn ugu yeeshaa oo macnaheedu tahay in la jecel yahay oo ku guuldaraystay run ahaantii arrinkaasi go'aan inaan ka qaato waxaan u daayey balwaayaha iyo wakhtigu waxay ku xukmiyaan maalmo ayaa noloshayda caynkaasi ku sugnaa waxaan xitaa iloobay dhibka iyo nolosha xun aan rumaysnaa inay wehel u noqon doonto hanidii aan u dayriyey waxaana saamayntii noloshayda ku yeelan lahayd hani ka xoog badiyey tan Istar haddii aan sidaa ahaa ayaamo oo fakarkii iyo isla hadalkii Istar igu sii batay ayaa waxaa ugu dambayntii igu dhashay waxaan marnaba filin inay dhacayaan ama ay qalbigayga ku dhalan doonaan inaan bilaabay rabitaan aan u qaado gabadhii Istar ahayd xaalka maalmihii ugu horreeyey waxa uu igu ahaa mid bilow ah waxaan isku dayay inaan isxakameeyo balse taasi waxa ii noqon weyday waxaanse maalinba maalinka ka dambaysa igu sii kordhayay rabitaanka ilaa aan isgaarsiiyey heeraas tuso qof aan iyada haynin inaan noloshayda kaafin karin anigoo xaaladaasi ku sugan ayaa waxaa igu yimid kulankii aan ku ballansanayn aniga iyo Istar waxaana kulankaasi uu dhacay si ka duwan midkii hore waayo midkan wuxuu noqday mid aamusnaan iyo xishood ku dhammaaday waayo Istar markii hore ayaaba xishoodka isaga dhalatay anigii ahaa qaybiyaha sheekada ayaa hawshaydii gabay intii lagu guda jiray kulanka dhowr mar ayay i weydiisay waxaa igu dhacay waxaanse ugu hadal qariyey in waxoogaa uu madaxay xanuunayo haddii aan sheekada iyo habeenkaasi sidaa iyo caajis ku dhammaatay ayaan isaga soo tegay anigoo markaan dheeraystay kulankii xigay oo aan u qabtay 10 cisho kadib si bal aan isu dejiyo xaaladdeeda ayaa sii cagarnaatay waxaana intaasi sii dheeraa culays aan kala kulmay dhinaca hani mar walba oo aan shaqada isugu aragno geesayga iila bixi jirtay iyada oo weli rajayn ka qabto isagoo ku gacan seeri jiray ilaa ay iskeed isaga quusato xitaa ballanqaadyo dhinaca dilacsiinta shaqada ayay ii ballanqaaday oo ay dhahaysa aniga ayaa aabba la hadlaya aniga ayaa soo dhammaynaya balse warkaas waan iska dhagamariyey maalmo haddii ay xal iyo dabacsanaan wax iiga raadinaysay oo ay ku fashilantay ayay bilowday shaqadeedii kibirnimo mar walba oo aan isku aragno xarunta shaqada wejigeeda waxaan ka dheehan jiray carab xoogan iyoinaynaba ku qanacsanayn xitaa inaan wasaaradda kasii shaqeeyo waxay xataa bilowday inay igu dhex ceebayso shaqada waayo waxay inoo ahayd madaxa shaqaalaha markii shirarka guud ee shaqaalaha isugu yimaadaan ayay qaylo iyo canaan dhagaha iga shubi jirtay ayadoo ka faa'iidaysanaysa dabacsanaanteeda iyo shaqogabis igu timiday markii aan rabitaanka u qaaday Istar waxba igama aysan dhibin cadaadiska dhinaca shaqada iga yimid hani iyo hamigayga ku wajahnaa Istar ayaa noloshayda ka dhigay mid jahwareersan oo fikir iyo isla hadal ku dhisan waxaase isbedelay hanaankii noloshayda iyo dabeecadahaygii oo dhan waxaana xaaladaasi ku sugnaa maalmo badan rabitaankii ayaa igu sii xoogaystay waxaana dareemay inaan jacayl u qaaday Istar waxaan si qabay cabsi xoogan oo ku saabsan sida nolosha u wadaagi karno iyo sida waalidka ay ku ogolaan doonaan in qof caynkaasi oo indhahala aan nolosha la wadaago aniga waxaas bay ima muuqan oo jacayl iyo sidaan waxba garanay bini'aadamnimada ayaa iloo siisay laakiin waxaan aad u ogaa in caqabada iga imaan doonto dhinaca waalidkay siiba dhinaca aabe oo ahaa nin aad u adag oo badanaa jecelin sida uu isagu wuxuu rabo in la yeelo si kastaba cabsidaas iyo cadaadiska aan filayay inuu isaari doono aabe
igama aanay reebin damacaygii Easter galay, waayo waxaan aad ugu rajo weynaa in caafimaadka indhaheeda xal loo heli doono haddii qarash badan lagu bixiyo. Taasina aad ayaan ugu kalsoonaa inay dhici doonto. Jacaylka ayaa igu soo kordhay, waxaana gaaray heer meel kasta oo aan joogaba, iyadoo una sawirto muuqeeda habeenkii markaan gamays idhaahdaba ayada ayaa iga hor muuqan jirtay. Maalinkiina isla hada ayada ku saabsan ayaan nafta ku maanweelin jiray. Quruxdeeda iyo xishoodka Rabbi hibada u siiyey ee dabeecadda lagu soo kordhiyey ayaa ahaa mid mar walba sare u qaaday jacaylkaan iyada qalbiga ugu hayay. Ayaama haddaan sidaa ahaa ayaan go'aan ku gaaray inaan u sheego sidaan u jeclahay anigu iyo hamiga weyn aan ka leeyahay. Waxaanse dareemay cabsi ku saabsan siday taasi u dhici doonto iyo sida ay ugu aamini karto, waayo Easter maba aynay aaminsaneyn qof ayaa ku jeclaan doona. Waxay ahayd qof ay ka dhimatay mar hore kalsoonidii naf ahaaneed oo ay ka lumiyeen indhala'aanta baahsan ee ku dhacday. Calaa kulli xaal, anigoo adeegsanaya farxadda yar ee aan tusiyey iyo kalsoonida aan geliyey maalmihii aanu isgaranaynay, ayaan cabsidii meel iskaga dhigay, anigoo isku diyaariyey in kulanka ugu soo horreeya ina dhex mari doono aniga iyo iyada aan u sheego in qalbigii qof ku weyn laabtina qaboojin kara ay tahay iyada. intaasi waxay nooga eg qaybtii 5aad qisadii jacayl iska kiilow. Hadduu rabo raalli ka noqdo, waxaan halkaa kasii bilaabi doonaa qaybtii 6aad oo noqon doonta qaybtii ugu xamaasada badnayd iyo waqti laysu sheeganayay jacaylka. Aan ku xasuusiyo tabiyaha qisada waa anigoo ah Nimcaan Ilka Case. Fadlan haddaad ku cusub tahay YouTube channelkeena subscribe saar, sidoo kale gambaleelka furo si aad toos ugula socoto aan halkan ka wadno.